waxaan ugu hambalyeynaya ciidanka dulmidiidka ciidanka ururka cadaaladda iyo sinaanta in mushaharkii loo qaybin doono oo dhiirigelin iyo horumarin halkaa laga sii wadi doono waxaan ugu mahadnaqayaa kale guulihii ay ka soo gaadheen intii ay opereeshanada fuliyeen ciidanku sida midnimada leh ee isku tiirsanaanta leh dadaalka badan iyo tababar qaadashada dheeraad kalena waa ugu mahad celinayaa waxaan kaloo halkan uga faa'iidaysanayaa fursaddan maanta qolyaha horgallada u ah sheegaanta ama muuse bixi gruubkiisa ee haybta aanu wadaagno waxaan u sheegayaa inaannu iyaga kaga horrayn doonno cid kasta oo aannu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonno oo inay nagaga xun yihiin muuse iyo gruubkiisa waxaan ku marayaa inaanaan ka waaban doonin inaannu walaalkay noqon doonin inaannu adeerkay noqon doonin ninka iga mabda' duwan ee iga soo hor jeeda ee dadka beenta u sheegaya eele waa la heshiiyey waa beentii ummaddu waa aragtaa ciidankani wuxuu diyaar u yahay in uu la dagaalamo musuqmaasuqa iyo cadaaladdarrada baahsan ee maamulka dullaysan ee jeegaantu samaynayo waxaan halkaa uga faa'iidaysanayaa kale qolyaha sii ilaashanaya shilimaadka ee weli jeegaanta u shaqaynaya waxaan leeyahay ciidankii mushaharkii waa u bilownay xeradayada iyo xafiisyadeeduna waa u furan yihiin dhammaan ciidamada gudaha wixii shaqo iminka haya ee diyaara mooyaane annaga nala shaqaynaya mooyaane wixii kale ee qori sita ama hubaysani inay ka soo faylaan xeryahooda oo ay yimaadaan baanu ugu baaqaynaa silerigii waa u bilaabaynaa ciidanka maantaannu siinaynaa haddii allah wadala ogolaado mushaharkii iyagoo ay gunno tahay haddana waa la kordhin doonaa insha allah kuwa maanta leh waxbaa jenaraalku wuxuu abaabiyey hawshii aannu lahayn jabhaddu lahayd soomaaliyu gacan la saaray waxba kama jiraan mabda iyagu waa kii hore aannu halkan ku nimi waa halgamaynaa halgankaygaannu sii wadan doonnaa haddii allah wadala ogolaado markaan ka hadlo dhinacyada kale madaxdhaqameedyadayada ku sugan ceerigaabo ee wada hawlaha aan nuugna ee ka shaqaynaya qorshaha madow ee dhagaraysan ee doonaya qorshaha kasta inay jibhaddan ku majaxaabiyaan gudahaan ugu geli doonaa haddii allayo gudaha waana layn doonaa cid kaleba u jeesan maayo cid kaleba maanta u jeesan maayo waayo cadowga gudaha iyagu noqday ha fahmaan ta kale jabhaddu haray u socotaa dhowaanna waa ka guuri doontaa halkan haddii alla yidhaaho gudahay geli doontaa wakhtigeedii waa la gaadhay suxufiyiinta xidhxidhan ee laga joojiyey shaqada waxaan leeyahay xorriyatul qowlka ha la sii daayo suxufiyiinta shaqadooda ha loo sii daayo war dagaalama idinkuna dhagaxa tuura haddaa wax kala gara weydaan dhagaxa tuura taxriir ka sameeya laamiyada fadhiista ummad garasho dheeroo guyaal soo jireenoo gobonnimo ku caanoo geygeenna soomaal gees walba ku nooloo gafka aan aqoonoo gardarrada ka diiroo gulfiyo colaadii goobaha dagaalkii halka laisku gowraco aan ka gaabsan weligood goob kastoo la joogana aan guusha laga helin oo gudubta raagtay gocashadu ka dheer tahay oo gelina limitood la gamaansasheeyo aan gaabsi noqonoo marka geela laga dhaco misna galabtii aarsada waa reero gaaroo beelaha garxajis iyo gudabiirse iyo arab ciisaha galbeed iyo dhulbahanta gobol iyo gujadana ma yeelaan intay gobol dhex joogaan gabaylguma koobay gacanlibaa hargeyso saylac goonyaheediiyo boorama gusheediiyo biligubadle iyo hawd xabsin gurundhigeediyo ilaa hara garduuriyo gaaraa bidhaaliyo gubadguun dusheediyo gorgurbay dhex joogaan dhabarooble gaadhkiyo goonyaha wardheer iyo ilaa hara garduuriyo gaashaamo loo galo ee gaalka gudintii tawrida ku gowraca ee beri guntiis iyo ilaa oogis gaadhe goof iyo xamaas iyo gudwaraabe iyo bohol xeebaha gelayay guumaysagteediyo garow iyo majeerteen harti gacal wadaagaan gees walboo la joogana magacooda gaarkaa garanaayo nooluhu ee geesiyaashii ragga guusha dhaliyey guurti iyo cuqaal iyo garaad iyo abwaanada guulahay ku deeqeegaygaba ka taliya haddii ay gadoodaan guddi iyo dad gaar iyo dawlad iyo gumaystoyo jeegaan iskuratayo gaal iyo shisheeye colka way gumaadaan
moogtahay galeedhow gobonimo durkii gumaystaha necbaaya intuu duurka ku galay geygoo dhan maamulay ee duurkan guushuu gaadhsiiyey nabadee gaajadii haraadkii u mutaystay geerida wiil garxajisu yahay moogtahay galeedhow geesigii 6 loo go'ay oo mujaahid gaar markuu galay xabaashay inuu nacabi soo galay gacaytiyo libaaxiyo geediyo maxamed cali hargwaafi iyo good maxamed mooge iyo guri moogtahay galeedhow guddi inay hoobteen sidii deegalka guuliyo ictiraaf u geeyaan rugba gargaare waxa jira garaadow raggu yaal dagaal iyo gardariyo xadgudub iyo gaadmo iyo habaar iyo ila rabay gumaado gam ku noqday kal shaalo loo gubin nugaalo gacasana ku caanbaxay dawladdu garab iyo gargaar ay fiiso jeegaantu gacansaar galeedhow la leedahay aan taabta goboode gurmad weeyma sida garxajisu diraayo bari gunti ku socoto nimanka gadweynayo sacadin iskaran karo ninka maanta gudubtay gacashada abuuray garashada ka liitay beelihii gudboona in bageesu tuuray gaashaan bur sameeyay arab iyo garxajis iyo gudibiirsi diiday dhulbaantana gantaadiyo ku ganay rasaaste guusheena diidanaya nabad soo gaban ninkii gafka bilaabay kala guray dadkiisa oo fikrada keenow intaan gabalku ku dhicin aan dhiig gubolayn imeedka gooyo dhaawac ku soo galin ka guuray anigu iyo rido gurguro gurigaadu dhaltay gabiil lagu soo talay